waxaan kugu soo gudbinaynaa nin Jamaican oo uur u yeelay gabar Soomaaliyeed. Arrintan ayaa ka bilaabatay kadib markii Asma ay guursatay nin Jamaican ah. Ninkan Jamaicanka ah ayay Asma isku guursadeen waddanka Mareykanka. Asma ayaa guursatay ninkan ayadoonan u sheegin waalidkeeda oo ku sugan Soomaaliya, wayna ka qarisay. Inkastoo aanan jeclayn inaan codkeeda idiin soo gudbiyo sababo jira awgeed, waxay naga codsatay in aan la talino oo kaliya oo codkeeda aan la faafinin. Asma ayaa waxa ay sheegtay in ninkaasi ay isqabeen muddo 2 sano ah ayna ku noolaayeen Mareykanka nolol farxad leh. Ninkan Jamaicanka ah ayaa ka shaqayn jiray warshad qalab samaysa. Waxaa dhacday in ninkan uu aado waddankiisa markay cabaar isqabeen iyadana ay sii joogto waddanka Mareykanka. Asma ayaa muddo 4 bilood ah weysaneed ninkan oo uu taleefanka ka qaban waayay, waxayna samaysay inay iska baarto in ay uur u leedahay in kale, waxayna iska weysay uurkii. Ninkii ayaa muddo 6 bilood ah kadib yimaaday waddanka Mareykanka, waxayna ku tiri inaad dhimatay ayaan u maleynayay, maxaa iila soo xiriiri weysay oo taleefanadan iga qaban weysay. Wuxuuna ugu jawaabay in murugo leh oo ah in hooyadiis ay dhimatay. Asma ayaa iyadana la murugootay dhimashada hooyadiis, halkii ayay ka sii wadeen xiriirka ay la lahayd ninkaas. Muddo kadibna uur ayay u qaaday, asagiina wuu baxay oo waddankiisii ayuu mar labaad dib ugu laabtay. Gabadhii ayay waalidkeeda la soo xiriireen, waa Asma, waxayna ku dhaheen maxaad u guursan laadahay Asma, waxayna ugu jawaabtay in ay ganacsi abuurayso haddana aysan guur u soo jeedin xilligan. Halkaas ay waalidkeed been ugu sheegtay. Asma ayaa ka soo tagtay waddanka Mareykanka, waxayna imaatay Afrika, gaar ahaan Uganda. Markay imaatay ayay la xiriirtay ninkii Jamaicanka ahaa oo uurka u lahayd, waxayna ku tiri Uganda ayaan joogaa, halkaasna ayaan ku soo dhalayaa, waana soo laabanayaa. Ninkii ayaa ku yiri markuu ka yaabay in ay isagoo u maleynayay markii hore inay joogto Mareykanka, wuxuu ku yiri hadalkayga si fiican u dhageyso. Wuxuuna yiri aniga Mareykanka shaqo ayaan u joogay, haddana waan ka tegay. Kaliya waxaan kaa rabay inaan kugu nasto oo aan waddanka inta aan joogo aan dareemin cidlo, maadaama lamaana aan ka dhigto. Waana kaaga mahadcelinayaa intaad la joognay. Uurka aad hadda leedahay ha igu sheeganin, aniga kaama dhalin, ismana naqaano, waayo xaas ayaan leeyahay oo ilmo ii haysa. Asma ayaa hadda la murugaysan khiyaanadii ay u sheegtay waalidkeeda iyo uurka loo saariyay oo haddana u saariyay nin aan Soomaali ahayn, oon ku diin ahayn, oo ku af ahayn, oo isan meel iska soo gelin. Haddaba gabdhow iska ilaaliya ajaanibta aad iska jeclaanaysaan idinkoona aqoonin waxa ay yihiin. Laga yaabo qaarkood inaysan diin haysanin, kana digtoonow haddii aad waalidka oo ka maqan aad been u sheegto inay beentaasi markaas soo baxayso. Haddaba intaasi ka sokow, maxaad kula talin lahayd gabadhaasi khaladka dhexda kaga jirta? Taladaada qaybta commentiga noogu soo reeb. Mahadsanid. Fiidiyowan